walaal muuqaalka ceelka iyo masaajidka haddii aad aragto sii faafi allah ku dhowro adduuniya aakhiraba ha yaraysan wixii aad awooddo maantu ay taariikhdu tahay 8 bisha 5 ayaan soo bandhignay masaajidka iyo ceelka oo u baahan in la garab istaago walaalayaal qof walboo muuqaalka ceelkan iyo masaajidkan sii faafiya allah dhowro fi dunya wal aakhirah sidaad aragtaan ceelkan aad u jeediin waa ceel u baahan weeyaan in la qodo oo la hagaajiyo bahalkii bambadii biyaha soo saari lahayd lagu xiro u baahan waayo walaalaha ehlu khayrka ah ilaahay wax siiyey allah subxaanahu wa tacaala idin barakeeye waxaan leeyahay maanta haddaa adiga $1 meesha ku dirstid ajri xasanaad ilaahay ku qoraa anigana ajri ilaahay wuxuu igu qoraa maadaama aan muuqaalkan adiga kugu soo sheergaray adigana weli abadkaaga ajran dhammaanayn abal iyo aakhir kuu jiraayo uu ilaahay kuu qoraa marka waxaan leeyahay adduunkan sidiisa wax lagu sii waarayo ma ahan waxa adduunkan waxa adiga aakhira beri u samaysatid aakhira kaaga horeeyo waxa adiga maanta aad samaysato oo wanaag adduunkan godkaasna ilaahay iftiin iyo waasac ilaahay kugu siinaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادين سلامي ولا الله قاليو مال الدنيا دافيد جوتين وحن الله وقتي وايو وايدين وعنادو وولالكينا أحمد يفكا إن الحمد لله آتي وما سنتي مقال كان سوق روح بدن أتو سبسكرايب جريسان جنبك يجسي سوق روح بدن هذه شير جريسان هنا هانتي آتي هذا يعني إنك جمع تعلنا الحمد لله ما شاء الله إلهي يمرو وحمد إلهي يمرو به ayaan u mahadcelinayaa maadaama dib iskugu soo laabanay waxaa maanta idin wadaa run ahaantii muuqaal oo qof walbo markuu daawado run ahaantii oo laabtiisa danqanayso horta weligay waxaan idinla sheergaray jiray muuqaal aan dad ku canaananayo misena muuqaal aan dad kaga hadlayo muuqaalkan maasha allah waxaan kaga hadli rabaa hadduu ilaahay noo qadaro guriga ilaahay beedka ilaahay inaan muuqaalkan aan kaga hadlo aaraba walaalayaalow idinkana waxaa idinkiiga baahanahay ina i amaahaysiin dhaayihiina iyo dhagihiina inaad i amaahaysiin aan idinkiiga baahanahay walaalayga qaaliga ah meel baa dalka dunida daafiyeeda ka joogtiin marka ila daawada muuqaalkan muuqaalka ceelkan haddii ku soo gaaro sii sheergaray walaalaha ehlu khayrkaan la wadaag allah ku barakeeyo adduuniya aakhiraba muraadkaagana xel fi dunya wa aakhira ceelkan aad u jeediin waa ceel u baahan weeyaan in la garab istaago meelna la siiyo wuxuu daris leeyahay masaajidka sidoo kale kaamanka aad aragtaan halkaan ku yaalo ayuu daris leeyahay iyo xaafadaha aadka u tirada badan saaka waxa weeyaan weyse qaadkii xitaa iska daaye biyo lacabo lagama ballan sidaas waxaa loo baahanyaa marka insha allahu tacaala walaalaha muslimiinta khayrka ilaahay wax siiyey inay ka faa'iidaystaan allah idin barakeeye lambarada tabarucaadka ahlu khayrka foundation eberli 18 somtel eberli 2 insha allahu tacaala aynu ka faa'iidaysano sadaqada jaariyada ah qof walbana wixii guddiisa ku darsan ha yaraysan wixii aad awooddo shaydaan wuxuu leeyahay ka tag markalaad waxa weeyaan ku darsan doontaay ha sameyn walaalaha gaarsii haddaadan ku baabisi haddii aad awoodana ku caawisha sidoo kale masaajidka mashruucii ayaa dhamaaday roog ayuu u baahan yahay masaajidka waad aragtaa waxaa yaala masaajidka mashruucii roog ayaa loo baahan yahay in roog la dhigo ayaa loo baahan yahay walaalaha muslimiinta ah qof walba wixii awoodiisa ha ku darsan qurba joog ahaw waddanka joog wixii awooddaad ah ku darso allah ku barakeeyo waa walaalkiina sanqale maxamed salaad nuur asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkayga aad iyo aad run ahaantii u mahadsan tahay aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya ilaahay ha ku barakeeyo allah ha ku xifdiyo walaalaha muslimiinta ina daawanayana waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo allahna idin xifdiyo run ahaantii weli muuqaalkan wuu fara badan yahay mid kalena wuu jiraa waxaan rabaa inaan ka hadlo run ahaantii walaalayaalow
Soomaali Maxamed ma tihiin, halna ma tihiin, labana ma tihiin, run ahaantii kumanaan kun milyan aad tihiin inta ruux islaan oo muuqaalkan daabatay. Maanta muuqaalkan aniga kuma raadinayay, run ahaantii views ma ku raadinooyi. Waxaa muuqaalkan uu isoo gaaray 3 hours ago ayuu muuqaalkan isoo gaaray. 3 hours ago ayuu isoo gaaray oo caawa ay tahay axad ay tahay muuqaalkan isoo gaaran oo TikTok run ahaantii iska daawanayo. Waxyaalo fara badan horta waa share garaysaan, run ahaantii waxaa share garaysiin waxyaalo xunxun, waa share garaysiin hees, waa share garaysiin. laakiin maanta waxaa idinka codsanaa inaa muuqaalkan walaalow ama walaaley ama hooyo, abaayo, aboowe, inaa muuqaalkan ay ii gaarsiisiin meel walbo oo ummad Soomaali aad igu share garaysaan. waxaan u baahanahay meeshan oo geeri go-anka ah oo dad qaxooti ku nool, kulley waxay ku taalaa waxay ka mid tahay qaaradeena Soomaaliya ay ka mid tahay. run ahaantii ma garanayo horta meeshay tahay meeshan, aniga ma kasahay, laakiin waxaa ujeedaa inay tahay meeshan meel baadiye ah inay tahay aa ujeedaa. run ahaantii ceelkanna waa ujeediin, wuxuu u baahan yahay shaqo aad u fara badan u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay maalgelin aad u fara badan u baahan yahay. masaajidkan lagu dukanayo haddii maanta lagu weys qaato biyahan oo ceelka ah oo lagu dugto masaajidkan, run ahaantii waxaa kaa soo gaarayo ajir aad u fara badan, ajir xasanaad aad u fara badan oo weligaaga cimrigaaga inta ka dhiman haddaad dhimato oo kuu sii soconayo aa kaa soo gaarayo. marka waxaa idin leeyahay walaalayaalow, muuqaalkan intiisa kale qaybtiisa kalena waa idin dhamaystiraa. kulley si fiican igula daawada idinkane sida ani aan u danqaday. waxaan jeclahay idinkana inaad u danqataan walaalayaalow, aad ka soo gaartaan ceelkan oo masaajidkana loo hagaajiyo, masaakiimiinta oo halkan ku nool na inaa idinka aad fiirisaan. walaal muuqaalka ceelka iyo masaajidka haddii aad aragto sii faafi, allah ku dhowro adduuniya aakhirada. ha yaraysan wixii aad awoodo. maantu ay taariikhdu tahay 28-ka bisha 5 2022 ayaan soo bandhignay masaajidka iyo ceelka oo u baahan in la garab istaago. walaalayaal, qof walbo muuqaalka ceelkan iyo masaajidkan sii faafiya, allah dhowro fi dunya wal aakhira. sidaad aragtaan ceelkan aad u jeediin waa ceel u baahan weeyaan in la qodo oo la hagaajiyo. bahalkii bambadii biyaha soo saari lahayd lagu xiro u baahan waayo. walaalaha ehlu khayrka ah, ilaahay wax siiyey, allah subxaanahu watacaala idin barakeeye. aynu ka faa'iidaysanno sadaqooyinka jaariyada ah. ceelkan aad u jeediin wuxuu u baahan yahay in la qodo oo la hagaajiyo oo la dayactiro. qof walba wixii awoodiisa ha ku darsado. shaydaan wuxuu leeyahay waxba ha ku darsan, mar kale aad wax bixin doontaaye ha samayn oo walaalaha kale gaarsii, wixii aad awooddo ku darso. 700 oo qofood min $1 haddii bixiso $700 bay noqonaysaa. 1,000 qofood min $1 hadday bixisana $1,000 buu noqonayaa. laga faa'iidaysto ceelkan insha allahu tacaala. sidaad aragtaanba gudihiisa ceel aad u dheer waaye, gudihiisa sidaad u jeediin ceel aad u dheer waaye, biyo yaraa ku jiro. wuxuu u baahan yahay in biyo badan laga soo saaro insha allahu tacaala. sidoo kale masaajidka ayaan u walaalahayga Soomaaliyeed, sida muuqaalkan aad hor ugu aragteen, waxaa idinkiiga baahanahay ina ceelkan oo ku agyaalo baytullah oo beydkii ilaahay oo ku agyaalo, waxaa idinkiiga baahanahay ina ceelkan garab istaagtiin. waxaa idinkiiga baahanahay ina masaajidkan loo sameeyo biyo weys qaad ah oo lagu weys qaadanayo. waayo masaajid maanta oo biyo la-aan cid maanta oo mar ahaantaas jamaaco fara badan ma imaanayso, waa la socotiin. agagaarahana waxaa degan dad aad u fara badan degan oo ku qaxooti misana buushley saa u taqaaniinbo. marka waxaa idin leeyahay, waxaa idinkiiga baahanahay lambarkaas aa ujeediin. aniga iskama lihi maanta, waxaa iskale videogana kuley waa ujeediin muuqaalkiisa screenshot idinkaga soo qaadaa, zuunan idin soo dhaha. lambarkaas hala tixraaco, ceelkaasna hala raadiyo. meel allaa meesha ku yaalo ma aqaani ilaa haddaba. waxa aan maanta u sheer garayna ayaa waxay tahay, run ahaantii intaasoo oo waxyaalo oo falfal xun ama dad qaaban reaction waan ka bixiyey, balse maanta alxamdulillah ilaahay wuxuu igu soo hanuuniyey inaan ceelkan maanta aan muuqaalkan aan ka hadlo oo ummadda Soomaaliyeed qaarkood
oo wax aan ogeynin inaan la sheergareeyo masana aan la socodsiiyo. saasaa maanta aan go'aansaday. alxamdulilah. waxaan idin leeyahay maanta haddaa adiga $1 meesha aad ku dirsatid ajir iyo xasanaad ilaahay kuu qoraa, anigana ajir ilaahay wuxuu igu qoraa maadaama aan muuqaalkan adiga kugu soo sheergarayay. adigana weli ebedkaaga ajiraan dhammaanaynin, abal iyo aakhir kuu jiraayo uu ilaahay kuu qoraa. marka waxaan idin leeyahay adduunkan sidiisa warta wax lagu sii waarayo ma ahan. waxa adduunkan waxa adiga aakhira beri aad u samaysatid aakhira kaaga horeeyo. waxa adiga maanta aad samaysato oo wanaag ee adduunkan godkaasna ilaahay iftiin iyo waasac ilaahay kugu siinaa. maasha allah. run ahaantii walaalayga qaaliga ugu xiran waxaan idinla jeclahay wax walba oo khayr ah inaan idinla sheergareeyo aan jeclahay. run ahaantii maantana mid oo maanta ka khayr badan ma jirto oon maanta idinla sheergareyn lahaa. waxaan idin leeyahay muuqaalkan aan lasii sheergareeyo. ceelkaasna waa kaa hala raadiyo meel alla meesha ku yaalo. $1 haddaa ku dirsatid maanta waa ajri xasanaad aan kaa dhammaanin ebedkaaga ma kaa dhammaanayo. waxyaalaha qaar waa sheergaraysaan, tiktok waa dhexgashiin. hala raadiyo wixii wanaaga ah, hala raadiyo wixii samaanta ku jirto, hala raadiyo wixii khayrka kaa soo gaara. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meelba dunida daafadka joogtiin muuqaalkan hanala subscribe gareeyo, like, t-shirt, commentiga waa idinka dhinaciina. waxaan leeyahay meel walba dunida daafadka joogtiin waqtiga iyo waayo waa idin wacnaado. sidaas iyo nabadiin.